وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسوا إن أويلي صدح الرمود روحي لقاه لوحو هلا إيمانك معانكس وجد حلاوة الإيمان. إيمانكو وحليه هي ردن بوليه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إيمانكو ردن إيا معان بوليه معانك إيا ردنك إيمانكو وكم معايه الشيء كستو معان، لكن dadka qaar baan dareemaynin oo dhadhanka iyo macaankaas aan helaynin. sababtuna waxay tahay malabka iyo xalwada iyo waxyaalaha macaan carabka dhadhamiya, laakiin iimaanka dhadhankiisa waxa dhadhamiya qalbiga. haddii qalbigaagu jiran yahay wixii macaana waa kula khadhaadhanaya. haddiise qalbigaagu fayow yahay dhadhankiisii dhabta ahaa baad shayga helaysaa. markii aad jiratood xanuunsato mararba waxaa dhacaysa in carabkaagu dhadhamiyo wixii macaanaa khadhaadh uu u noqdo, leanna wuu jiran yahay, isagaa jiran ee shayga uu dhadhaminaya waa macaanyah. mushkiladiisa waxay ka socotaa isagaa jiran. wakadalika macaanka iimaanka haddaad heli weydo macnaheedu qalbigaagaa jiran waayo. jiradaasaa keenaysa inaad macaankii heli weydo. nabigeennu wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh 3 arrimood oo keena in aad iimaanka macaankiisa hesho. midda koowaad waxa weeyaan inaad allah iyo rasuulkiisa jeclaato oo aad jacaylkooda ka hormariso shay kasta oo la jeclaado. naftaada, xoolahaaga, caruurtaada, dumarkaaga, wax kasta ood jeceshahay waa inaad ka hormariso allah iyo rasuulkiisa jacaylkooda. haddaadan halkaa gaadhsiisnayn iimaanka macaankiisii ma helaysid. marka qalbigaagu ma dhadhaminayo, taacadii kuu macaanaan mayso, qalbigaagu xasili maayo, sidii la rabay waxu heli maysid. saas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala waa inaad jeclaato jacayl ka badan kana weyn wax kastoo la jeclaado. sida ilaahay qur-aanka kariimka ku yidhi waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilah. wax kasta oo la jeclaado oo ay ummadaha kale jecel yihiin waxaa ka weyn oo ka adag jacaylka ay mu'miniintu ilaahay jecel yihiin tabaaraka wa tacaala. allah baad jeclaan lianna allah tabaaraka wa tacaala wax kastoo laysku jeclaado isaga xaggiisay jiraan. waxaa laysku jeclaadaa waxa aad jeclaanaysa inuu yahay mid dhammaystiran oo aan ceeb iyo dhimanaan lahayn. allana tabaaraka wa tacaala waa midka dhammaystiran oon dhimanaan iyo ceeb lahayn. daatadiisa, falkiisa iyo ficilkiisa, sifaadkiisa iyo magacyadiisa allah tabaaraka wa tacaala waa kaamil. waxaa kaloo keenaya inaad jeclaato allah tabaaraka wa tacaala wax kastood haysato, nicmo kastood haysato isagaa ku siiyey. waa ku abuuray, isagaa ku keenay, isagaa caafimaadka ku siiyey, isagaa xoolaha ku siiyey, isagaa caruurta ku siiyey, isagaa nicamka kala gedisan kuwa lagula wadaagay kuwa ku khaaska ah. kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba nicmooyinka aan la tira koobi karin ku raaxaysanayso isagaa bixiyey.
maadaama asagu wax walba uu ku siiyey waa inaad isaga ku jeclaato maadaama uu yahay midka dhammaystiran oon dhimanaanba lahayn jacayl buu leeyahay sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala qalbiga mu'minka uu ku wan yahay wax walbana uu kala wan yahay oo uu ka jecel yahay nebi maxamed baad jeclaanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna wuxuu sabab u yahay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh nicmooyinka aan haysanno midda ugu qaalisan ee ugu qiimo weyn ee ugu fiican nebi maxamed baa sabab u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada adoo gaajaysan nin waxoogaa ku siiyey adoo xoolo u baahan nin waxoogaa ku siiyey adoo khatar ku jira ruux sababkaaga noqday inaad ka badbaado qalbigaaga aad buu ugu weynaanayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo sabab u ahaa inaad baadida ka hanuunto oo aad khayrka jidkiisa hesho in aad naar ka badbaaddo oo aad ilaahay jannadiisa gasho aakhariya adduunba khasaarihiisa inaad ka baxdo ood liibaanta adduuniya aakharaba aad hesho nebi maxamed baa sabab u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed jacaylkiisu waa inuu shay walba ood jeclaanayso kaala wan yahay maxaa laga wadaa jeclaad allah iyo rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa laga wadaa alle haddaad jeceshahay markaad rumayso kadib iyo rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa la rabaa jacaylka qalbiga isku jiraayo inuu isu bedelo dhaqan inuu isu bedelo wixii uu ku faray inaad samayso wixii uu kaa reebayna inaad ka hadho inaad diinkii ilaahay soo dejiyey nebi maxamedna la yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kuu keenay in aad barato ku dhaqanto u hiilisood garab istaagto difaacdo akhlaaqdii iyo dhaqankii nebi maxamed sal alla alay wasalam laga helo oo aad ku dayato markaasuu jacaylku dhab yahay laakiin jacayl qalbigaan ka jeclahay dhaqanna ma jiro isma keenayso low kaana xubuka saadiqan la atactah qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii waa aayat libtilaa haddaad allah jeceshihiin waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow haddaad allah jeceshihiin jacaylka aad sheeganaysaane allah hadduu dhab yahay aniga nebi maxameda iraaca jidkayga mara allah saasuu idinku jeclaanayaa dembigiinnana ku dhaafayaa sidaas daraaddeed maxabbadu macnaheedu waa raacitaan macnaheedu waa ka amar qaadasho macnaheedu waa sharcigood yeesho macnaheedu waa inaad u hoggaansanto wixii rabbi raalli ka yahay waa in lagaa helo wixii rabbi uu diidayna waa inaad ka tagto taasaa laga wadaa allah iyo rasuulkiisa jeclow oo jacaylka qalbiga aahaartiisaa ka dhalanaysa qodobka labaadii waxa weeyaan an tuxiba almar'a laa tuxibuhu ila lilah in aad dadka u jeclaato ciddaad jeclaanayso ilaahay dartii allah dartii ruuxan waxaad u jeceshahay leanna waa mu'min ilaahay keli yeeloo muwaxid ah waxaan ku jeclahay wuu akhlaaq fiican yahay waxaan ku jeclahay waa addoon saalixoo ilaahay caabuda waxaan ku jeclahay diinta rabbi buu faafiyaayoo u adeegaa waxaan ku jeclahay waa ruux allah iyo rasuulkiisa jecel waxaan ku jeclahay ruuxa mabdi'iisa iyo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala jecel yahay kuna xidhan yahay allah dartii dadka ku jeclow cidda aad nacaysana ilaahay dartii ku nac alluu ka fog yahay gaalnimo munaafaqnimo ilxaad zandaqa bidco macaasi iyo dunuub ilaahay dartii baan u nacbahay waxaan ku nacbahay caqiidadiisa xun akhlaaq xumadiisa dhaqan xumadiisa diintii rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka fogaaday taasaan ku nacbahay kana tanaan ku jeclahay khisaasha iimaanka ta ugu muhiimsan buu nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iimaanka qodobadiisa midda ugu adagi waa inaad waxaad jeclaanaysa ilaahay dartii u jeclaato waxaad nacaysana ilaahay dartii u nacdo ciddaad xidhiidhinayso ilaahay dartii u xidhiidhiso ciddaad nacayso goynayso fogaynaysana ilaahay dartii waa inuu noqdo u fiirso allah baad jeclaatay
isagii aad jeclaatay qodobka hore ku yimid baa addoommada xidhiirka kaala dhaxeeyana isaga dartii waay ma aha calashaani qabiil baa naga dhaxeeya dhalashaa naga dhaxaysa ma aha calashaani waddan baa naga dhaxeeya ma aha calashaani isku jinsi baa nahay ma aha calashaani masaalix iyo danaan naga dhaxaysa ma aha oo danaan ku qabaa ma aha ee waa liajli illaah wa fillaah tabaaraka wa tacaala markaad heerkaa soo gaadho ayaad iimaanka macaankiisa helaysaa inta aad ka hoosaysoodan macnaha helin ma dhadhaminaysid iimaanka macaankiisa nacam waad ka korboodaysaa waana midda keenaysa in ilaahay taacadiisii iyo cibaadaadkii iyo khayraadkii kugu adkaadaan inay kuu dhadhami waayaan inaad macaansan weydo inaad u adkaysan weydo waxaa keenaya waxway calashaani macaankii iimaanka ayaan qalbigaagu uusan helin qodobkaana waa qodobka labaad waaye waana qodobka in badan inaga maqano jacaylkeenna iyo xidhiidhkeenna waxyaabo kaluu ku salaysan yahay aafaadkayna haystay ka mid qodobka u dambeeya saddexaad nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay haddaad rabto iimaanka macaankiisa inaad hesho waa inaad kufriga gaalnimada inaad u nacdo sida aad u necab tahay oo kale in dab lagugu tuuro naar in lagugu rido waxaad maanta ka necab tahay ma jiro in inta lagu soo qabto dab holcaya ama naar lagugu rido waa waxaad ugu necabtahay hadday iimaan lahaydna waxaad ku furan lahayd wax kastood haysato xoolahaagaad ku furan lahayd oo waxaad ku furan lahayd carruurtaada oo waxaad ku furan lahayd reerkaaga oo waxaad ku furan lahayd ood madaxaaga ku furan lahayd si aan dabka lagugu tuurin wax kastood heli karto walaa shaka fii dalik sida aad u necab tahay in naar lagugu rido karaahada aad kahanaysiiyo heerkay kula gaadhsiisan tahay heerka waa inaad ka gaadho nacaybka gaalnimada iyo ilxaadka iyo fisqiga iyo xumaanta waa inaad saa u nacdo saa ma gaadhsiisan tahay way leanna waxway asalku waxa weeye qalbiga markuu iimaan dhammaystiran dego wuxuu ka saaraa oo ka fogeeyaa wixii iimaanka ka soo horjeeday oo gaalnimada iyo munaafaqnimada bal wuxuu keenaa inuu ruuxu kahdo dunuubta xataa inuu kahdo haddaad aragto dunuubta jacaylkeeda uu ruuxu jecel yahay waxaa keenaya iimaankii qalbiga ku jiray baa naaqis ah laakiin markuu iimaanku dhammaystirmo iska dhaaf gaalnimada iyo munaafaqnimada xataa macaasida iyo dunuubta ayuu nacaya oo kahanaya waana iimaanka qaybtiisa ugu daciifsan buu nabigu ku tilmaamay sal alay wasalam oo markuu ka hadlaya dunuubta iyo macaasida iyo munkaraadka ruuxii munkar arkaayi nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam gacanta waxa kaga qabto hadduu kari waayana carabka hadduu kari waayana qalbiga ha ka kahdo iimaanta ugu tabardaran waa kaa iimaan waxaa ugu tabardaran inaad qalbiga ka kahato xumaanta iyo dunuubta iyo macaasida riwaayo kale waxa weeye hadduu ruuxu qalbiga ka kahan waayo xumaanta iimaan intaa ka dambeeya maba jiraba iimaan markaa waa dhammaaday lianna waxa weeye ruuxa muuminkaee qalbigiisu iimaanku ku jiro waa inuu ka xajiimoodo oo dhibsado oo u naco wixii uu necab yahay allaha uu jecel yahay tabaaraka wa tacaala soo alla ma jecelid wuxuu jecel yahay waa inaad jeclaato wuxuu necab yahayna waa inaad nacdo muxuu allah jecel yahay iimaanka iyo camalka saalixa buu jecel yahay muxuu necab yahay kufriga iyo fisqiga iyo cisyaanku ilaahay necab yahay innagana inoo nacay allah tabaaraka wa tacaala wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan allah wuxuu idiin kahday uusan idinla rabin idiin necab yahay inaad nacdaanna la doonayaa gaalnimada fisqiga dunuubta inaad kahataan way allana waa idin kahday tabaaraka wa tacaala waa idinla nacay tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed haddaad weli aadan dhadhaminin iimaanka macaankiisa waxaad ogaanaysaa mushkiladu aday ku haysataa waad jiran tahay jiradaaduna waa jiro qalbiga ah qodobadaas iyo miisaanadaas saddexda nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa asbaab keeni karta haddaad xaqiijiso
in mar labaad qalbigaagu uu helo iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa sidaas daraaddeedna guul weyn aad gaadha aakhiriya adduunba oo ilaahay tabaaraka wa tacaala liibaantiisa aad hesho cadaabkiisa iyo cuquubadiisa iyo inaad adduunka laftiisa aad dhibaatoodana aad ka badbaado qodobada saddexda marka ruux walba waa miisaan la doonayo inuu isa saaro goonidaada u bax waxaad tidhaahdaa ilaahay rasuulkiisa jacaylkooda maxaad ka haysaa maxaa kaa maqan iimaanka macaankiisii ma heshay daacadu ma kuu dhadhantaa qalbigaagu ma xasilay allah ma jeceshahay rasuulkiisa ma jecesha ilaa heerkee xidhiirka dadka kaala dhexeeya muxuu ku salaysan yahay ma qabyaalad baa ma wadaniyad baa ma maslaxa iyo danbaa mise waa ilaahay dartii isweydii kufriga iyo gaalnimada ma necabta haddaadsan necab tahay ilaa heerkee ma gaadhsiisan tahay ilaa heer aad sida naar in lagu rido dab lagugu ridoo kale saad u necab tahay ilaa heerkaa ma gaadhsiisan tahay waa inaad su'aalaha isweydiiso miisaanadana aad adugu isa saarto wixii kaa dhimanna aad isku dayda inaad raadiso wixii aad haysatana isku dayda inaad ku fara adeegto صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان يا حي يا قيوم اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم ارفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق اللهم وحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك